البضم يري ويمكن أتوقع يسمونه وحوي هو كده ضيرة يعني عاد على جامعة يباش إذا نقصد واحد مسكين يقول لي كمان تبروح ترى بندق بوجا وبراي براي قوي نستعد حمود جار كو قرن ساينس كي قران هو إسكا وافقين ما جعل لسات هاي مركا invitation كنا ولدنا هيا حق الباب كانوا يدكوا قايبين طوران مركا كانك صغير قالوا عم الله يوحب سدوين يا أبوان يحيى عبد على جامعة يباش بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام dhalinyaro waa salaamantihiin marka khashaafada lagu qabto wajiyada dhalinyarada ma arkaysa marka qosolka iyo sacabka iyo waxaas maan maqlay laakiin haddaan qofku inuu xanaaqo wajigiisa laga dareema marka ugu horeysa marka haddaan igu xanaaqdaan iyo ma yara dareemayo wajiyadiina raalliga ahaada allahumma salli ala maxamed niman odayaala iga horreeyo macallimiina aniguna arday baan ilaa imika ahay marka waxa weeyaan haddii hadalkaygu waad iskaga dul qaadanaysaa waxaan ku yara noqonayaa marka anigu aan dib idinku yiri celiyo mawduuca meesha maanta loo yimi hibada waxa la yiraahdo sugaanta waxaan 6 sano ahayn baan ku jiraa gebigeedaba 3 sano ugu horreeyay marka waxaan u fikiri jiray sida loo yaqaano macro dhaqaalaha waxa loo kala qaybiyaa macro iyo micro waxa weeyaan dhaqaalaha marka sida weyn aad u eegayso dalka dhaqaalihiisa caynka microna waxa marka jeebkaaga eegayso baskaaga lacagtaada prepaidkaaga waa sida yar marka barigii hore 3 sano hore ku jiro waxaan fikiri jiray si weyn waxaan ka hadli jiray qabyaaladda wadaniyada siyaasadda waxyaabaha waaweyn dhalinyarada marka waxaan soo jiray malaha dadka marka saa loo wacdiyo waa si fiican oo waa lagu maqlayo waa lagu dhageysanaya waxa uu saameyn bay yeelanayaan baan soo jiray laakiin waxaan ogaaday halka caawa dhammaan halka qabyaaladii waxaan ka sheekeynayaa dhigba jalaq looma siinayo wadaniyad baan ka sheekeynayaa tahriiba waxaas waa sida weyn mawduucyada waaweyn markaan ka hadlayo weeyaan waxaan ogaaday sugaantu waxay saameyn badan tahay markaad shakhsiyadda la hadasho markaad gacmaha xoog dhaqaajiyaan marka waxa ay saameyn badan tahay sugaantu waxay saameyn badan tahay marka aad shakhsiyadda la qofka markaad la hadashay sugaantu saameyn badan tahay dil 3 sano ugu dambeeyay maansooyinka sameeyay waxay ahaayeen waan soo ararnay raalliga noqon 3 sano ugu dambeeyay marka maansooyinka sameeyay waxay ahaayeen maansooyin la hadlaya qofka shakhsiyadda la hadlaya maanso naf la hadal dhamaysnimo waa isbaro si xor u fikir maanso la hadlaya shakhsiyadda qofka la hadlaya sababtu waa maxay markaa sababtu waxa weeyaan qofka ibn aadanka haddaad si ballaaran ula hadasho waxa ka saameyn badan markaad tiraahdo heblaayo markaad xaliimo tiraahdo markaad faarax tiraahdo ayaa ka saameyn badan markaad tiraahdo reer somaliland ama reer hargeysa markaad tiraahdo taasaa ka saameyn badan kolka hibadu waa maxay waxaan hibada la yiraahdaa waa maxay hibadu waxa weeyaan waxay qeexdaa qofkay qeexdaa marka jabkaan la soo yar maray baan maanta idinka sheekeynaya baasha berigaan dugsiga sare dhigan jiray marka dugsiyada sare imaka waxaan ka soo kacay documentary ka hadlaya hibooyinka dadku markay dugsiga sare ku jiraan hibooyinka ay helaan qofku markuu dugsiga sare ku jiraa buu gartaa waxa uu ku fiican yahay hibadiisa hadduu wax sawiraya iyo hadduu gabayay iyo hadduu wax qorayay intaba markuu dugsiga sare marka waxaan sameeyay documentary ka hadlaya dugsiga sare saameynta uu ku leeyahay qofku inuu hibadiisa helo waa in dugsiyada carabiga tarbiyan baan ku dhiganaa moogtaa iyo ingiriisi iyo noocaas laakiin kuma soo abqaalana hibooyinkeena kolka dadka Mareykan tagta maanta saddex wuxuun baa lagu weydiinayaa lacag ma haysata lacagtiya baawarku waa isku lacagtiya siyaasaddu waa isku wadiga arkay maanta ninka Sacuudiga iyo qolo mid bay dileen mid wariyaa bay dileen Soomaa lacag bay haystaan dal lama hadlayo Mareykan uu ka warwareegaya xataa nin kasta uu ka warwaaya lacag bay haystaan lacagtu baawarku way u dhigantaa marka lacagta iyo siyaasaddu way soo dhigantaa marka mawaadiicdii la inaga hadlayay siyaasaddu lacag bay u dhigantaa maanta haddaad taajir tahay wasiir kasta halkaas aad soo fadhiisanaysaa xildhibaan kasta bartaas aad soo fadhiisanaysaa wax allaaliya waxa balood dadweynuhu leeyihiin oo dhammaad khasab ku iibsanaysaa waa markaad lacag leedahay weeyaan lacagtu waa meel marka lacagtu marka waxay u dhigantaa power kama hadlayno damiirka iyo dadnimada halka inoo dhiga waxaynu ka hadlaynaa horta awoodaha lagu faanayno ku hadlayno mid waa lacag ma haysataa haddaad lacag haysato waxaan ku wuri saddexda xisbiyo bartaas aad caawa soo fadhiisanaysaa mid kasta musharaxaad ka qaadaysaa ana musharax noqonaya baad odhanaysaa ilaa awood baad leedahay lacagtu waa awood waa power lacagtu weeyaan
taas waa mid lacag ma haysataa ma haysatid aqoon ma leedahay qofkan ma noo daweyn kartaa gurigan gaadhiga ma hagaajin kartaa gurigan ma aqoon ma leedahay aqoon material ma leedahay aqoon markaan ka wadana waa xirfad ma aha aqoontan slide-da iyo jaamacada lagu dhigan la qaybo ma PowerPoint-ka ma hadde tan aqoon ma hadde wala in xifdisiya waxaan aqoon ma hadde waa slide-da khasab ku xifdiyaysa slide-ka saddexaad su'aasha saddexaad waxaan aqoon ma aha waxa weeyaan waxba la inagu shushubaya aqoon ma aha wala in rusheynaya aqoon ma leedahay aqoon markaan ku leeyahay waa xirfad weeyaan gaadhigan ma hagaajin kartaa gurigan ma dhisi kartaa qofkan ma daweyn kartaa waxa ma qaban kartaa dhulka ma xaari kartaa geedkan ma beeri kartaa waxa ma samayn kartaa aqoon ma leedahay ma ay aqoon mali lacag ma haysto aqoon mali waxa saddexaad leedahay waa waxa saddexaad la xaweyay hiba ma leedahay hiba hal abuur wax ma hal abuuri kartaa weeyaan marka afrikaanku halkay soo galaan marka waa hal abuurka markaas way lacagna ma haystaan lacagtoodii waa la dhacaa aqoonna markaa ma helaan markaa halkay soo galaan waxa ugu badan ay yeeshaan marka waxa waa hal abuurku markaa wax weeyaan markay bulsho noocan nahay aan markaa siyaasiga oo aad baan uga qoostay siyaasiga iyo powerka iyo lacagta aad baan uga qoostay halkaas aan iska dhigay markaa siyaasiga imka lama hadlaba iyo aqoonyahanka waxa lama hadlaba aqoontan halkaas aan iska dhigay waayo waxba kama qaban karayo daanu jaamacadaha waxba kama qaban karayaan siyaasigna waxba kama qaban karayo barqad baaba iga dhawaaba halkan joogo waxba laakiin anigu kama qaban karayo awoodda markaa waxaan saaray waxa hibada la yiraahdo maadaama aan lacagna haysan siyaasadna gali karayn imikaanan aqoonyahan jaamacadda Hargeisa agaasimiye gudoomiye aan waxba noqon karayn waxaan awoodda saarayaa maanta haatadan waxaan qaban karayo ee aan awood u leeyahay baan sheegaya waa hibada marka halkay ka soo galaysaa marka caawo dhan waxa la idinku wacdiyay ama waxay ahayd aqoon ama waxay ahayd lacag iyo power inta midna idinku maanta awood u leeyahay food baad awood u leeyahay foodkana laakiin si kala la idinku xisaabtamayo si kala reeray qaynkaas la idin soo maraa laakiin waxaan ka hadlayaa shakhsiyadda maanta halkan fadhida hebel shakhsiga la yiraahdo ma heblaaya shakhsiyadda la yiraahdo waxay maanta wax ka qaban karaysaa waa hibadeeda inta kale waa wacdi guud iyo si guud ma leedin wacdiye laakiin maanta waxaad wax ka qaban karaysaa waa hibadaada mawduucan marka halkan kaga hadlaynaa maanta wuxuu dheer yahay mawduuc kasta wuxuu qabyaalada dheeriye wuxuu tahriibka dheeriye wuxuu wadaniyada dheeriye wuxuu diinta dheeriye wuxuu aqoonta dheeriye waxa weeyaan waxaad adigu wax ka qaban karayso adiga oon lacagna u baahnayn maal la u baahnayn reer hebel la u baahnayn baad ka qaban karaysaa hibadu waa waxa awooddaale weeyaan waa waxa aad qaban karayso adoon qofna u baahnayn adigoon siyaasina u baahnayn ayaa halkaa lagugu yeedhayaad halkaa iskeeni karaysaa waa awoodda ay hibadu leedahay weeyaan mid kale markaa idiin sheegaya hibadu waxyaabahay ku wacantay waxaa ka mid ah shaqo qofku ma raadsado hadduu qofku hiba leeyahay niman baan u tagnay maalin markaa waxaan ku nodhiyey waan ka sheekayn doonaa mar kale ka sheekayn doonaa hibadaada si loo iibiyo waa wax iyaduna waa lecture gaara niman baan u tagnay qolyahan telefoonada iyo waxaas ee shirkadahan xoya shirkada magacaabine marka waa niman wadaada waan u tagay waxaan ku ori bandhig baan qabanaa lacagna siiya maxaad qabanaysaa bandhig maxaad ka sheekaynaysaa marka jacaylkaan ka sheekaynaa jacaylka ayaan ka sheekaynaa markaa lacagna siiya lacag maxaad qabanaysaa dee howlkaan ku garaysanaa meesha wax ku kala dabaraynaa lacagna siiya markaa waxay tahay anagu haddaan aanu arrin khayriya haddaanu ahayn adeero annagu de lacag idima siinayn haddaan arrin khayriya ahayn jacaylku khayri maaha markaa jacaylka khayri baa loo haystiibay waxaa ku uri markaa waa tan mooji maalmaha waxaa markaa socday shirkadu markaa way tartamayeen markii 8 gaadho telefoonadu soo ma jabaan lacagtooda soo ma jabaan telefoon lacagtu way jabtaa soo ma tobanka iyo soo ma maalmaha sana sheekeynay أقول لا طبعاً إلا طبعاً كي بكات الفون ده حلا بلاوي شركة دي بس كودا ضيدي وحلا بلاوي طبعاً كوي حكي تميسا إلا تشبيو تلفون ده مكان تشبي ما كان أنا ماشي ما بدنا وير فكرة يعني كينو يدي إنه العكس يسيو كسان كوري هذا رهي ده مركب وحن كوري تلفون ده ما كوا هبين كوا دي تشبيه طبعاً كوي حكي تمبي ها يو حبينا دليل ده شيء كيسو الشيء كذا دم حد بخير بقى waxaad u jabisay ma anagu la ka sheekeynaynaa khayratii wad ninkii lacagti wala ka soo qaaday marka waxaan ka wadaa waxa weeyaan hibadu mushkilad bay yeelanaysaa iyo lacag waxay u baahanaysaa labadan kale u baahanaysaa waxay u baahanaysaa lacagtii iyo aqoontii bay u baahanaysaa labadii kale way u baahanaysaa laakiin qofku haddii uu hibadiisa iibin karayo labadana wuu bedeli karaa
imaka lacag markaad haysato lacagta wax kasta aad u bedelan karaysaa xataa jacayl baad u bedelan karaysaa shan dumar aad ku jeclaan karaya lacagta jacayl baa loo bedeli karaa soo maaha hibada waxa loo bedeli karayaa lacag hibada waxa loo bedeli karayaa aqoon hibadu waa sida lacagta oo kale waa liquid wax solid ma aha meel taagan ma hibadu waa wax liquid weeyaan marka qofku hadii uu ama gabyo ama wax sawiro ama wax qoro hal abuurka doonta yeelo hal abuurkaaga waxaad ogaataa inuu yahay wax liquid oo dareere ah oo isbedbedeli karaya oo lacag ka dhigi karayso aqoon ka dhigi karayso mustaqbal iyo career ka dhigi karayso wax ku wacdi waa hibadu waxa weeyaan waa waxa liquid ka ah weeyaan marka waa inaad taqaanaa sida hibadaada loo iibiyo marka tusaalahan idin siinaya dhalinyarada ku imanaysa waxay qoranaysaa niyo waanu gabaynaa laakiin wax Allah iyo wax inaad sare noo qaado marka goboladaas ka yimaado waxay go'day marka waxaan maleynin Hargeisa joogo oo xaafadooduna ladan tahay baa gabi karaya sanadkan oo maleyn oo waayo waxa ku leeyahay wallahi dan nibanku ka leedan yahay buu imika ka caansan yahayo suugaanta kirigeeda lacag bay u baahan tahay hibadu waxa ku leeyahay hibadu lacag bay u baahan tahay waa runtii hiba aan lacag u baahnayn ma jirto laakiin waa inaad taqaanaa sida hibadaada lacag loogu bedelo haddii aad aqoon inaad hibadaada lacag u bedesho mushkilad baa ku dhacaysa tusaalaan ku sinaya marka gabay baan doonayaa inaan akhriyo caawa halkan ka akhriyo ma akhriyo laakiin tusaale inaan idin akhriyaan doonayaa gabayga waxaan ka fikirayaa haddaan caawa halkan ka akhriyo maxaad faa'iidaysaa yaxye ahaan maxaad faa'iidaysaa caawa haddaan gabayga halkan ka akhriyo maxaan faa'iidayaa waxaan faa'iidayaa in idinka wax idin sheegay idinka aan idin wacdiyey idinka aan wax idin taray dalkayga aan wax taray haa waxaa soo dhan waa laakiin anigu maxaan faa'iidayaa sida imika loo fikiraa ku sheegay wuxuu ku leeyahay anigu maxaan faa'iidayaa caawa iyo beri halkan aan gabay ka akhriyayaa anigu maxaan faa'iidayaa ayuu ku leeyahay hibada caqabadaha hortaalla weeyaa marka sheekayna wallahi suugayahanadu waxay ku fiican yihiin dadka hal abuurka kale moojaan laakiin suugayahan wuxuu ku fiican yihiin wuxuu leeyahay makaanad buu ku leeyahay geyiga Soomaalida ka suugayahanka shaah baa loo qaadayaa gabadh baa la siinayaa waa la amaanayaa waa la iska jecel yahay suugayahan abwaanka wax la iska jecel yahay laakiin kuwa wax sawirada jabay waayo suugayahanku marka hore meel kaga jiray bulshada Soomaaliyeed laakiin imka hal abuurkan dambe wax sawirka kamarada waxyaabaha caynkaasi waxa uu yahay niyaro waxa loo haystaa un flick la moogtahay marka wax kale anagu waxaan idinku dhaanaa marka hore ayaa aabayaashay iyo ragii naga soo horeeyay suugayahanadu ay bulshada meel ku lahaayeen taasi marka waxay naga saacidaysaa in la qadariyo mihnadeeda laakiin waxa jira hal abuur badan oo aan kaayaga ka dhicin oo aan la qadarin baa jira marka kaasi wuxuu koornayaa yaxye anigu ma gabiyo laakiin waxaan doonayaa hibadayda inaan iibiyo adiga danigaaga ragii hore ku jeclaa in abwaan gabadh wax lagu siin